بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhibaatada kaamirada ay leedahay ayaan video aan ku arki doonaa Israa'iil oo gacanteeda isku fadaxaynaysa waa video ayada iska duubtay. Okay, waan u imaanayna arintaasi sidaas oo kale Israa'iil Quds oo ciidamada Israa'iil halka u gashay waxa la ogaa dabcan Qassam iyo meesha isla marayaan Soomaa Israa'iil Quds oo u muuqata inay isticmaalayso taktikooyinkii Qassam waan arki doonaa maxay yihiin taktikooyinkaasi sidaas oo kale hay'adda u qaabilsan ganacsiga dhinaca badda ee Ingiriiska oo sheegaysa 22 rag hubaysan ayaa doon ama markab korkooda intay fuuleen kadibna dhinaca Soomaaliya u ka xeestay arintan insha Allah ta'ala u imaanayna falanqeynteeda Mareykanka haddaan ku bilowno afhayanka Mareykanka ayaa wuxuu leeyahay Gaza waxaan ku dadaalaynaa xaaladda intan ka badan macnaha lama fiirsan karo sidaa darteeda dhulka sida Masar dhinaceeda in adiga gargaarkii laga soo geliyo sidaas oo kale Urdun in laga soo geliyo iyo dekada area-da ka dhow inaan isticmaalno annagoo markaasi gargaarka Falastiiniinta ugu gaarsiinayna Israa'iil dabcanna aan pressure ku saari doono waan hadaladii hore ayuu dabcan la mid yahay aan ku bilowno BBC-da oo soo bandhigtay videogaasi waxaad ku arki doontaan ciidamada Israa'iil ayaa videoga asal ahaan soo bandhigay markaasi BBC daba gashay maxaa yeelay dhakhaatiirtay BBC-da wareysatay hadalkay u sheegeen ee videogan Israa'iil ay soo bandhigeen ciidamadeeda way isku marxaati kacayaan marka videoga muxuu yahay haddaan arkaynaa bismillaah waa kana In the IDF's own footage you can see that hospital patients had their hands zip tied detained outside in their beds and wheelchairs This was when troops also detained the medical personnel more than 50 of them forced to leave their posts and remove their surgical clothing maxaa meeshaasi ka maqashay macnaha ciidamada Israa'iil waxay ku andacoonayeen ay sheegayeen annaga dadka maxaan ku dhahay ee bukaanka isbitaalada inta galnay ma aan soo xirxirin kaliya dhakhaatiirtii iyo aan xogaay qabanay annagoo baarayna inay Xamaas ka mid yihiin in kale soo ma ahan okay videogan ayaga soo daayay waxa lagu arkayaa bukaanadii oo sariirtooda jiif oo gacmahooda xirxiran lugahooda xirxiran kuwooda wheelchair ka saaran sidaas oo kale videoga soo daayay Israa'iil hadalka aan ku soo celiyaa mar In the IDF's own footage, you can see that hospital patients had their hands zip tied, detained outside in their beds and wheelchairs. gacmahaas oo fiirso BBC-da inta ma inaan oga harene waxay kaloo sidaas oo kale tiri The BBC has seen evidence that doctors, nurses and other hospital staff were detained, beaten and prevented from carrying out vital has seen evidence macnaha BBC-da waxay aragtay cadeyntii gacantay ku dhigtay oo ah dhakhaatiirtii iyo nurseski oo inta gacmaha laga xiray si xun loo garaacay la jir dilay aan ku soo celiyo The BBC has seen evidence that doctors, nurses and other hospital staff were detained, beaten and prevented from carrying out vital medical duties when Israeli forces overran a hospital in Gaza last month. المهم arintan ka waran gacanteedina isku fadaxaysay macnaha videoyada badana iska duubida la iska duubay hadda ka hor arintaasi macnaha ummadeena Soomaaliyeed waxaan u sheegay war markaad careysan tihiin gaar ahaan familada videoda aad duubaysan joojiya maxaa yeelay marka qaarkiisa qofka uu careysan yahay ama asal ahaan video duubidiisaba hadii mid aad soo diyaarsatay halka soo fariisatay khaladaadka aad edit garan doonto haduusan sida ahayn wax un ayaa laga dhaxarki doonaa ciidamada Israa'iil hadda un miya ceebtan waa markii 10aad waa markii 20aad waa markii laakiin midkan hore u inkireen kan wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore waxay u dhaheen habay yaraatee annaga bukaanka maba aanan taabanba dhakhaatiirtan un baarnay wabillahi tawfiiq laakiin hadda maxaa la arkayaa bukaanka naftirkooda xirxiran sariirta ku korxiran wheelchair ka saaran oo ku korxiran sidaas oo kale dhakhaatiirtii la soo daayay cadeemahooda BBC-da arkaysa yacni shirkadda Minaro Homes daartii quruxla indhaha deeqdo qalbiga ka degtee guryaha dabaqyada dushaad ka arkine bal hoos u dego si yara daawo bal dacalkaan iyo ilaa dacal kale guryaha dadan iyo intii dabaqaba daraandar indhaha mar daymoodo naqshada dahabka waxaa dejisay dhistay oo ku diyaarisay shirkadda guryaha ee Minaro Homes waxay Nairobi idinka diyaarisay qaybaha kala duwan ee guryaha kuwa ugu wanaagsan waxaana ay hadda mashaariic ka wadaa xaafadaha kala ah Westland, Backland, Kileleshwa, Sikomo iyo South Sea 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi iyo 5 qol iyo fadhi sidoo kalena shirkaddu waxay haysaa guryo dabaqyo ah oo gaagaaban oo duplex ama villooyin ah kala xiriir telefoonada kaaga muuqda shaashada baraha bulshada markizu Abu Hurayra Qur'an Online Academy
waxa ay ubadkaagu ka helayaan waxbarasho diini ah oo la hubo waxa uu markasku la diyaar yahay barashada quraanka kariimka hingaada iyo qoraalkiisaba barashada caqiidada islaamka sidoo kale barashada adkaarta iyo ducooyinka barashada ahadiista iyo siirada nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa wax ka dhiga markaska barayaal aqoon iyo xirfad sare u leh waxbarista ubadkaaga macadka waxa uu ku yaalaa magaalada Hargeysa wixii faafayntaas dheerna kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda u door caruurtaada macallin aqoon leh iyo saaxiibka ubadka hadda koran aan xusuusiyo waxa jiray in Israa'iil ay video soo bandhigtay videogaas waxay ku sheegtay macnaha hub Hamas ay leedahay qabanay kombiyuutaraan qabanay laptopyaan qabanay kada kadib videogii maxaa lagu arkay laptopyada waxaaba sawirka saaran iyo yani waxyaalaha mesela meesha yaala iyo waaba qalab Israa'iil iska lahayd maxay sameeyeen video ay ka saareen kadib ay hadan videogii soo celiyeen ayagoo soo edit gareey marka maxay ka saareen macnaha laptopyada adiga blur ka dhigeen way qariyeen laakiin goorma waa goor uu tagay hadalkii tagay almuhim Israa'iil oo gacanta isku fadeexaysay videogan waa mid ka hadana aan u badinayo maxkamadda loo isticmaali doono khaasatan South Africa ay qaadan doonto biidin Allah taala marka almuhim ragii qaarna waa la soo daay dhaqaatiirtii qaarna wili way xiran yihiin Israeli hostages were also held there as our correspondent Mura Davis reports hadalka BBC la socdo wili Not for the first time in this war, Israeli soldiers have been filmed standing over stripped and kneeling detainees in Gaza. But these are medical staff, detained after the Israeli army overran the Nasser hospital in Khan Yunis. Most of them are still held captive. badankooda ilaa hadirtan way xiran yihiin qaar la soo daayay qaarkii la soo daayana cadeyntii korkooda ay ka muuqataa horena dabcan waan aga hadalnay waana soo bandhignay okay waxaan u gudbaynaa Israel Quds waa maxay taktikooyinkan ay isticmaalayso ay la soo baxday waa taktikooyinkii hore Hamas isticmaali jirtay oo ahaa in adiga tuneladeeda ay bambooyin ilan tuneladii waxay kala yihiin kuwa deegaan ah kuwa dagaal weerar iyo loogu talagalay kuwa siriq ah oo lagu daba ciidamada Israa'iil iyo marka isoo galan lagu qarxiyo marka kuwan ciidamada Israa'iil lagu dabaayo ayaa marka ayadana hadda isticmaashay waa markii ugu horeysay intaan arkaayo oo Israel Quds arinta ay soo bandhigayso nacam waxaan ku naqaanay kataib al-qassam boqolaal mar inay arintaas sameeyeen tunel intay bambooyin iyo miinooyin iyo adduun iyo qarax ay ka buuxiyeen kadibna ciidamada Israa'iil ku gaadeen oo markale ay ku gaadeen oo markale ay ku gaadeen arinta horan waan u ogeyn iyo guryaha ku qarxintooda Israel Quds waxay leedahay akhbaaraadkan degdeg ah u fiirsa labadaba koow ma saddex leh koow okay dhinaca okay waa ka ma kan ma ahan okay kan waa midka tunnelka ay ku qarxiyeen ciidamada Israa'iil marka tunnelka ay soo galeen intayna soo galin almuhim way arkeen inay u soo socdaan area-daasi hore waxay ugu sii diyaariyeen waa maxay qaraxii mar alla markay ugu soo dhawaadeena way ku shideen qaraxii sidaas oo ku dhacay midkan kalena waxa weeyaan guri ciidamada Israa'iil ay isdahayeen aad baartaan ay sidaas oo kale ku qarxiyeen taasoo ay leeyihiin guriga waxa galay oo indhaha aan saarnay leeyihiin kuna qarxinay 7 askarta ciidamada Israa'iil ka midka ah okay waxaan u gudbaynaa Soomaaliya iyo hay'adan badda u xilsaaran ee ganacsiga Ingiriiska oo ay sheegaysa 22 ka mid ah Soomaali ayaa dabcan loo malaynayaa sida la leeyahay laakiin waa 22 qof oo doontii ama markabkii intay soo fuuleen kadibna afduubtay ka xeestay dhinaca Soomaaliya ay ula soo dhaafayna la leeyahay arintaasi wax faahfaahin inta ka badan lagama haayo طيب hadalkii ugu dambeeyay waa intaas hadii aan wax ka tagay okay arinta kale waxa weeyaan mukhaabaraadka Mareykanka ay waxay leeyihiin in Xisbullah hadirtan aynan ka muuqan inuu dagaal rasmi ah oo weyn oo diyaar u yahay marka la fiiriyo asaga Israa'iil waxay isku turturayaan almuhim xogaa soo tuura xogaa lagu tuura laakiin dagaal rasmi ah labadaba uma diyaarsan sida hadalku u muuqdo طيب waxaan marka ku soo gabagabeynaa su'aalihiina oo aad ku soo qorteen dhinaca commentiyada iyo kuwii emailada ku yimid laakiin aad ay u tiro badan yihiin sida darteeda waxaan qaadanaynaa insha Allah ta'ala intaan awoodno su'aalahaas inaan ka jawaabno waxa ugu horeeya oo aan ka jawaabayna bi idin Allah ta'ala Idris Adam su'aashiisa wuxuu leeyahay shaqadeeda waa safar oo joogto ah xilli walban waxay ugu soo aadaa ama safarka aan ku jira maadaama sanadkii oo dhan aan shaqeynayo Ramadaanka ayuu ku soo aadaa marka wuxuu leeyahay ma afuri karaa maadaama xaaladda aan ku jiro asal ahaan safarka guud ahaan lama kala reebin inaad tahay macnaha qof hal mar safray iyo qof mar walba safar ku jira oo aayad Allah waxa ku cad faman kana minkum mariidan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra oo macnaheedu yahay qofkiina xanuunsan ama safarka ah wuu qalleynaa oo gudaya maalinta ama marka uu noqdo nagi qof ah oo degan ayuu gudaya waa ruqsad Allah subhanahu wa ta'ala adoomadiisa oo si xadiidkii rasuulka alayhi salaam saasa ku cad qofka musaafirka ah ilaaha ruqseeyay oo ruqsaysiiyay sida darteed ruqsad leedahay
markii aad nagitahay aad gudaysaa biidni illahi tacaala oo aad xasisho hadday noqoto bil kadib 2 bil kadib 3 bil kadib 4 bil kadib mushkilo korkaada ma aan biidni illahi tacaala sidaas samaynaysa waana sida dhammaan aayaadka iyo xadiis ay sheegayaan su'aashan kale waxay leedahay walaasha nasr ayaa la dhahaa sheekh masjidka inaan aado taraawiixda ma waajib bay igu tahay ama gurigan ku tukan karaa ay leedahay asal ahaan taraawiixda rag iyo dumarba asalkeeda waajib ma aha kow labo salaada waajib ahaan waxay ku tahay inuu qofka masjidka aad waa ragga dumarka ma ahan sidaa darteeda masjidkaad ku tukan kartaa haddaad doonto gurigaad aadi kartaa asalka dumarkan waxa weeyaan sida fiican inay gurigooda ku tukadaan ama ragga haddii uu heli karo waajib kuma ahan ogow taraawiix ahaan yacni inuu masaajidka aado laakiin waajib kuma ahan waajibka shanta salaadood ee faradka ayaa waajib ku ah qofka ragga inuu masaajidka aado ama wixii ka soo haray sunanta waa taraawiixda ka mid ah وبإذن الله تعالى هدو دونو غورو كتكنايا هدو دونانا سيده فيعان مسلمين تاس iyo wuxuu badinayaa masjidka camiraan diisa iyo wixii la midka ah طيب سؤاشك هذا ugu dubno walaalkan abagala xasan waxa uu leeyahay should I say nawaitu sawman when I'm fasting marka aan yani soomay berito nawaitu sawman kada ma dhaha ayuu leeyahay asalka niyad weeyaan niyada inaad ku talaffudo culama dhahaysa dabcan inaad dhahdo weeyaan iyo wixii la midka laakiin macna wax daliil ah ma lahan sida darteeda hadii aad niyeysato niyadan labay u dhacaysaa in ramadaanka maalinta uu soo galay aad dhahday ama aad niyeysato dhacfan in soonka bisha oo dhan aad soomayso niyadaasi way xirmaysaa sidaas oo kale sida fiican ay leeyihiin culimada xilli walba aad suxuuranayso ama habeen walba inaad niyad cusboonaysiiso marka inta waa sameyn kartaa waad niyeysanaysaa oo kaliya isla asaga ayaa su'aal kale ay weydiina wuxuu leeyahay xaaskayga timahay dabatay marka maadaama timaha ay dabatay yani markii qasli ay gasho ma inay furfurtaa mise sidoo ay ku habaysan kartaa asalka waxa weeyaan qofka janaabada qaba ama isdahirinaya in biyaha ay gaaraan jilkiisa sidaa darteeda haddii ay xirxiritaanka ama dabitaankaasi uu ka hortagayo in jirkeeda qayb ka mid ah oo biyaha gaarin way furfuraysaa haddiise laakiin normal ay tahay ay gaarayaan wayna gaarayaane sidooday dabcan u qabaysanaysaa oona gaaraya biidni illahi tacaala marka inay furfurta laazim ma ahan sida culamada badankooda ay qabaan su-aasha kale aan u gudbaynaa dhinaca emailkan aadayna markan xogaa dhinaca waa commentyada waxaan ahu leeyahay walaalkan xasan maxamed dhaawac ayaan ahay wiigiina 2 jeer ayaa la idhayaa marka la idhayaan wuxuu leeyahay dhiig ayaa ka yimaada meesha la dhayaayo marka soonkayga maxay u dhimaysaa oo ma iga jawaayay wixii la midka asalka wax walbo camdi ah oo kas ah sida inaad matag iska keento oo kale sida inaad adiga dhiig iska keento oo kale dhammaan waxa oo dhan waxay soonka u dhimayaan nacam ha oo balway burinayaan haddii uu yahay camdi marka aad tahay laakiin dhaawacanna meeshan haddii aan la dhayin dhibaato gaaraysa sidaa darteed wax kas u sameeyna ma ahan ilaahay idinkiisa normal weeyaan sida culimada dabcan badankooda ay dhahayaan wixii xanuun ah ay hore u jiraad qabtay inaad iska dahiriso ama iska nadiifiso wixii dhib ka yimaada ma ahan mid aad u khasaday adiga inuu dhiiga yimaado sidaa darteeda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku yasiro hana ku caafiyo waxba biidin illahi tacaala soonkaad uma dhimayso su-aalihii intaasaan kusoo koobayna maadaama ay aad u tiro badan yihiin insha allahu tacaala videoga xiga iyo kan kale xiga ayaan ilaahay idinkiisa kusoo darayna jawaabahooda biidni illahi tacaala allah subxaana wa tacaala ha naga aqbalo soonka ramadaan mubaarak ayaan ilahay dhammaantiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markizu abu hurayra qur'aan online academy waxa ay ubadkaagu ka helayaan waxbarasho diini ah oo la hubo waxa uu markasku la diyaar yahay barashada qur'aanka kariimka hingaada iyo qoraalkiisaba barashada caqiidada islaamka sidoo kale barashada adkaarta iyo ducooyinka barashada axaadiista iyo siirada nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa wax ka dhiga markaska barayaal aqoon iyo xirfad sare u leh wax barista ubadkaaga macadka waxa uu ku yaalaa magaalada Hargeysa wixii fafaanintaas dheerna kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda u door caruurtaada macallin aqoon leh iyo saaxiibka ubadka ismaha guryaha ee Manaro Homes Limited minanka tabaysiyo muhuraanka deegaankii ugu mudnaabay Manaro Home ku leedahay Manaro Homes meel kastoo ku sugan tahay iyo markastoo ay ku tahay maanta aad helaysaa ee kaalay mudan oo martiha iska yeeline Manaro Homes Limited Manaro Homes Limited waxay ka dhistaa guryaha magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadaha Parkland, Westland, South Sea, Kileleshwa iyo Sikomo dhismo kasta waxa uu leeyahay goobihii cibaadada sida masjid ilaa iyo 300 oo qof qaadaya gym ama goomaha jirdhiska oo rag iyo dumar u kala soocan qolalka dhismayaashu waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi ama 5 qol iyo fadhi guri kasta waxa uu wataa qolka shaqaalaha guryaha waxa dhisaya shirkad Turki ah dhismo kasta waxa uu leeyahay madaaris goobaha dabaasha oo rag iyo dumar u kala soocan cafeteria supermarket pharmacy goob caruurta ay ku ciyaaraan dhismo kastaana sidoo kale waxa uu leeyahay adeeg waardiye kaamirooyinka ammaanka ee CCTV parking gawaaridu ay galaan oo qaybta hoose oo dhulka ah
habka lacag bixintu waa hab sahlan oo 30% lacagtu ay hormaris tahay lacagta kale waxaa lagu bixinayaa 4 sano wax dulsaarna ma jiro wixii faahfaahin oo ku saabsan shirkadda Minaro Homes kala xiriir xafiiskeeda oo ku yaala Chabavu Lane Silver Office Suite dabaqa 3 B30 Hillingam Nairobi Kenya Minaro Homes kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda